kulantay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee dowlad deegaanka magaalada Birmingham halkaas oo ay ku soo bandhigeen ololahooda ictiraaf raadinta dalka Somaliland oo hadda ka hor ay aqoonsatay magaalada Sheffield waxay ka dhaadhiciyeen kana codsadeen in dalka Somaliland yahay dal in ka badan 23 sanadood nabadgelyo ku soo caanamaalay isla markaana ka soo baxay dhammaan shuruudihii qarannimo ayna tahay in hadda la soo gaaray waqtigii uu ictiraaf buuxa ka heli lahaa caalamka mid kamida mas'uuliyiinta ay la kulmeen oo ka hadlaya kulankaasi isaga ayaa wuxuu yiri Just had a very interesting meeting. I've been given a fascinating history lesson about Somaliland. Waxaa maanta halkan lagu siiyay 10 aad u cajaa'ib badan oo ku saabsan Somaliland. 10kaasi oo iga jaahil bixiyay wax badan oo aanan hore u ogeyn. Waxaana wax lagu farxo laguna faanaa in 20 sano iyo dheeraad ay Somaliland samaysay dawladnimo taaba qaaday oo si dimuqraadiyada la isu doorto iyo kala dambeyn qariib ku ah gobolkaasi ay juqraafi ahaan ku taalo. arintana la soo hordhigay ku tacalluqda ictiraafka Somaliland waa mid leh miisaan aad u culus marka la fiiriyo waxa ay qabsatay Somaliland waxaanuna eegaynaa haddaanu nahay golaha looga arrimiyo Birmingham sidii aan u saacidi lahayn dhanka kale la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Barkhad Jaamac Xirsi oo safar hawleed ku joogay dalka Ingiriiska ayaa isaguna kulankaasi lagu marti qaaday isagoo ka hadlayana waxa uu yiri labada xildhibaan ee dhageysanay presentationka su'aalaha soo rays gareeyeen ku saabsanaa Somaliland iyo qadiyadeeda waxay markaa iyagu su'aalaha sheegayeen waxa kamid ahaa bulshada Soomaaliyeed xaggan idin la degan ma ku qanacsan yihiin xiriir ma leedihiin tiitu ka duwan buu ma aragtay hadhow toliyaga way qabeen dareenka noocan laakiin isagu bayaamiyo wuxuu waxa dhici karaysa in groupkaasi ay naga soo horjeedsadaan oo idin imaadaan oo na challenge gareeyaan laakiin laba qodob baan idin ka codsanayaa kow hanoo maqlina buuli labana idinku ihtimaam gaar ah qadiyadan siiya oo dhab idin ka noqoto marka message aad u qurux badan message centerkii aanu soconay isaga taabtay dhinaca kale munaasabad aad loo soo agaasimay ayaa jaaliyadda Somaliland ee Birmingham ku soo dhaweeyeen la taliyaha madaxweynaha mudane Barkhad Jaamac Xirsi